السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maantay arbaca tahay oy maaragtay bishuna tahay 7 bishii maaragtay sideedaad halkan waxaa toos ugu jira fanaanka weyn ee reer Jabuuti Ciise Xabiibi oo diradhaba jooga oo soo dhaweyntii walaalkii diradhaba u yimiday Xabad Muuse soo dhawow Ciise. وعليكم السلام وناظر وسودوهاي وانا في عناي aad waan fi canahay jawiga waxa ku jirnaa macaan ee reer diradhaba ah yaa ku jirnaa jawi fiican waqti fiican waxa maanta halka jidka dheer aan soo maray walaalkay Xabad yaan soo maray saaxiibkii ahna fanaanka walaalkay ah ee reer Jabuuti ah waa maalinta la isgarab joogsado waa maalinta walaalka wuxuu yahay laga helo garab iyo gaashaan marka waxaan doonay aan jidka dheer aan soo maray walaalkay Xabad waxaan leeyahay ku soo dhawow wadankaaga diradhabe waxaan leeyahay mar labaad ku soo dhawow wadankaaga Jabuuti fanaaniinta reer Jabuuti ahna aan jeclahay Xabad Colaad marka waxaan leeyahay walaalkayow maanta waxaan joognaa airportka aan tagaynaa 5 iyo barka ayuu ku soo degayaa Muqdisho ka imanaya hadii la yiraahdo ta Muqdishona colaad nagama dhaxayso walaalaan nahay dadka Soomaaliyeed oo waxa naga dhaxayso walaaltinimo naga dhaxaysa aadna waan u salaamayaa dhammaan reer Muqdisho meel kasta ay joogaan shacabkooda iyo madaxweynaha dalkaba Soomaaliyeed Xasan Sheekhna aad baan u salaamayaa iyo ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyay Xabadna isagana aad baan u salaamayaa waxaan leenahay Soomaali colaad nagama dhaxayso walaal baan nahay fan u baan isku kaaya dhaxmaray fanaanku qolo male oo adiga hore u fanaanku qolo male intii fanaanineed walaalkay soo garan joogsan waxaan leenahay hambaliyo intii ka seexatana waxaan leenahay hurdo wanaagsan ma sha Allah kaasi waxaan ku weydiinayaa maxaad maaragtay sida maaragtay social media maaragtay dadka dibadda jooga ee Xabad la dhashay ee Xabad la dhiiga haday tahay rag iyo dumar gaar ahaan dumarka maaragtay social media-ga gaashaan iyo garab u noqday adigoo kala qaadqaadeen maxaad ka ornaysaa والله dadkan dibadda joogo dhan aad baan u salaamayaa waayo qofka la runtiso ficilka lama tuso anagu reerkayga lahaana gaar ahaan ee Ciisaha dad manihi qabiil ah dad manihi u taagan 24 saacadood media ku jiro iska caaya anagu manihi reerkayga waa reerka loo yaqaano dadka ka nadiifa Soomaaliya kasta ay joogto xeer baan leenahay xeerka baan ku soconaa xeerka baan kala wada dadka maxay qurbaha ku nool iyagana waxaan leeyahay aad baan soo salaamayaa sida walaalkii u qacdeen ay soo habalyeynaysiin ay wada istaagteen dhammaan rag iyo dumarna aad baan soo habalyeynaya inkastoo raggu inta badan ay hablo ay ka firfircooyin ay ka badan yihiinba hadalka inta badan hablahana gaar baan soo salaamayaa hooyadana gaar baan soo salaamayaa dhalinyartana iyadana aad baan soo salaamayaa ragga walaalaha iyo tolkeena waxaan leeyahay maalintaas waa maalinta la isku ficiltimo aad baan soo salaamayaa waxa dalka iyo dibaddaba joogaba ma sha Allah maxaad ka leedahay dadka maaragtay orgaanshuunka haya oo ugu horeeyo DJ Mango ee dhalinyarta maaragtay adoo kala qaadqaadeen isku duubnidu waxay keento example bay u tahay maanta ummad Ilaahay iyo fankoo dhan maxaad leedahay dadka maaragtay kolka la isku duubnaado awood dadku ay leeyihiin DJ Mango waa nin aad u firfircoon oo talkii jecel oo aad u jecel weyn DJ Mango waa nin furfuran waxayaan waa ismaqashiiska Soomaali oo dhan maanta diradhabe xalay habeen hore DJ Mango waa ninka u firfircoon inaba aan ka seexanba isku xidhannahay DJ Mango waxaa leeyahay walaalkay oo aad baad u mahadsan tahay waa walaalka waxaad maanta iyo garab siisay aniguna diradhaba kula joogaa حتى كل فينال DJ Mango حتى يسوى عيبة إن شاء الله حتى ما هؤلاء دعوة أو هوتيل كان جوان كبلاني فكان DJ Mango عليه أدب خصوصا بليانية ما شاء الله أديك واحد إلهي ويديستي أديك غير كابا أديك غير كابا إن المارك أفرن دوضيس إيجايا سنة جديد كا أما سنة صوص عتا إن الكوكولانو عاصمة ودك فرنسيس كباريس أيان رجينا يا عيسى حبيبي وهكاسي هديد مهود كسر جرا حبد موسى shanta airportka u saxeeyay shanta gal ka dambe ayuu soo baxayaa hadii Ilaahay dhaado way shanta gal ka dambe wuxuu joogaa diradhaba afarta diradhaba inuu joogaa ma sha Allah kaasi wuxuu ahaa fanaankii weynaa ee reer Jabuuti ee walaalkii Xabad Muuse uga soo baxay Jabuuti ee maantana jooga
caasimadii labaad ee Ethiopia diridhabe gebi dhammaan hablaha walaalahaya anoo kala qaadqaadayn ilaahay waxaan inii baryay nabad ininka iyo ubadkiina iyo awlaadiina iyo ooridi iyo raggiina sharaf ku noolaada raggana sidaa baa leeyahay isku duubnaan baa wax lagu gaadhaa fankuna waa mid keliyaata saldheemana aad baan u salaamayaa iyo malabo waa labada u firfircoon aad baan u salaamayaa labada iyakana waan salaamaynaa halkay joogaan ilaahay ha ku ilaaliyo ifiya akhraba iyaka iyo arsaaqadooda iyo awlaaddoodaba fankuna waa mid keliyaata Soomaaliya waa caasimadii Soomaaliyeed waa sidaa uu sheegay xasan sheekh maxamuud iyo xamzaba waan salaamaynaa ra'iisul wasaaraha qaabilay shonteerkiisa xabad muuse aad baan u salaamaynaa dowladda Soomaaliya oo dhammaan iyo xildhibaanadeeda Soomaaliyeed ee xaga ugu horeeya 10 xildhibaan baan salaamaynaa xildhibaanada dhan waan salaamaynaa kullu Soomaali mid keliyaata Soomaali waa mid keliyaata wax ka hoose ma jirto kaasna wuxuu ahaa ciise xabiibi oo diridhaba jooga salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciise وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.